soo dhawaada saaxiibayaal walaalkiin Aadan Nuur Xasan insha Allah maanta barnaamijkeena haddii Alle waxaan rabaa inaan kula wadaago course dhammaystiran aad ku baranaysid muuqaal samaynta ama video editing-ka. Course-kan waxaynu ku baran doonaa program lagu magacaabo FiverCut. Programkan waa idin soo xulay waxaad ku samayn kartaa muuqaal tayadiisu aad u sareyso. Programku waa multi-track. Marka programkan insha Allah course-kan ayaan ku baran doonaa bilow ilaa dhammaadba. Waxaan rajayn doonaa saaxiibayaal dhammaantiin muuqaalkan inaad ka wada heli doontiin. Haddaba aynu gudgalno barnaamijkeena. Ugu horreyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanaynaa kanaalka muuqaal production haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar videogana like saar bal isku daya muuqaalkan like-tiisa inaad gaarsiisiin 500 oo like ah aad u mahadsantihiin saaxiibayaal dhammaantiina. Ugu horreyn marka programka FiverCut-ka si aad ula soo degtid ani waxaan isticmaalayaa telephone Android aan isticmaalayaa. Waxaad soo furtaa Google Play Store-ka aad soo furaysaa waxaad ku qortaa FiverCut aad ku qoraysaa. Marka programka runtii saaxiibayaal waa la iibiyaa lacag waaye qaybta free-ga haddii aad la degtid programka xayeysiin wuu leeyahay waxyaabo badan uma furfurna sidoo kale watermark-na wuu leeyahay. Marka ani hadda course-kan waxaan isticmaalayaa midka Pro-ga ayaan isticmaalayaa oo lacagta la iibiyo. Marka midka hadda Pro-ga aan isticmaalaya haddii aad u baahan tahay waxaad ku soo biirtaa groupka Telegram-ka aad ku soo biiraysaa. Groupka Telegram-ka linkigiisa wuxuu yaalaa description-ka waad ka helaysaa. Comment ugu horeyn waan kuu soo dhigi doonaa insha Allah. Marka groupka Telegram-ka ayaan soo dhigi doonaa insha Allah midka lacagta la iibiyo. Haddii midkan aad u baahan tahay Google Play Store-ka yaalana waad la degi kartaa midkan. Marka programka markaad la soo degtid aad ku shubatid teleefankaaga si aynu u barano programkan FiverCut-ka waad soo furi doontaa insha Allah programka. Marka programka markaad soo furtid si aynu u sameyno project-gan ugu horeyso ama mashruuceena ama muuqaalkan ugu horeyso si aynu u sameyno waxaynu ku dhufanaynaa qaybtan ay ku qoran tahay daaqadan create aynu ku dhufanaynaa. Daaqadan marka create aad ku dhufanaysaa. Create-ka markaad ku dhufatid waxaad soo gali doontaa insha Allah qaybta teleefankaaga gudihiisa waxaad soo dooran kartaa sawiraanta sidoo kale muuqaalada ayaad soo dooran kartaa. Almost marka muuqaalada marka halna waad u soo dooran kartaa sidoo kale waad saari kartaa selection oo ah 3 xabo 4 xabo intaad u baahan tahayna waad soo dooran kartaa. sidoo kale qaybtan kalena sawirooyin haddii aad u baahan tahayna waad soo dooran kartaa. Almost marka ani 3 muuqaal ayaan soo doortay kadib qaybtan waxaad ku dhufataa next-ga ayaad ku dhufanaysaa. ugu dambeyn marka saaxiibayaal waxaad gudaha u soo gali doontaa programka qaybtan timeline ee lagu edit gareeyo muuqaalka ay ku imaan doonaan muuqaalada aad soo dooratay. qaybtan sare markaad fiirisiin ani waxaan isticmaalayaa midka Pro-ga ayaan isticmaalayaa oo lacagta la iibiyo. marka talaabadan ugu horeyso waxaynu ka bilaabi doonaa insha Allah inaynu saxno cabirka muuqaalka. qofka video editing-ka first markuu sameynayo cabirka muuqaalka waa inuu iska saxaa. haddii tusaale ahaan TikTok aad muuqaal u sameynaysid muuqaal portrait inaad sameysid muuqaal taagan, YouTube aad u sameynaysid muuqaal landscape ama muuqaal GIF inaad sameysid mid walba cabir uu leeyahay saaxiibayaal. muuqaal walba course walba aan soo diyaarinayna waan ku sheegaa badankooda. marka si aad cabirkaas aad u saxdid tuulisha meeshan kuu saaran ayaa dhanka waxaad u soo jiidaysaa midigta aad u soo jiidaysaa. waxaad doortaa marka toolkan ay ku qoran tahay canvas-ka aad dooranaysaa. canvas-ka ayaad soo furaysaa. canvas-ka markaad soo furtid marka waxaa kuu soo bixi doono aspect ratio ama size ayaa kuu soo bixi doono oo kuwa ugu caansan oo la isticmaalo. Instagram haddii aad u baahan tahay, YouTube haddii aad u baahan tahay, TikTok haddii aad u baahan tahay marka size-ka inta ay ku yaalaan almost marka size-ka aad u baahan tahay aad dooranaysaa. ani waxaan dooranayaa YouTube ayaan dooranayaa. marka size-ka ugu horeyn muuqaalka markaad sameynaysid aad edit gareynaysid size-ka ayaa la iska saxaa. marka size-kaada markaad saxdid kadib waxaad u gudgali doontaa insha Allah jarjaridda muuqaalka iyo waxyaabo badan inaad hagaajisid muuqaalka. sidoo kale talaabadeena xigta waxaynu sameyn doonaa inaynu jarjarno muuqaalka. marka si aad u jarjartid muuqaalka adigoo isticmaalaya programkan FiverCut-ka muuqaalkaaga ayaad dooranaysaa. kadib waxaad ku dhufataa toolkan ay ku qoran tahay split. meeshaad u baahan tahay muuqaalkaaga waad daawanaysaa. meeshaad u baahan tahay inaad ka jirtid muuqaalkaaga markaad dhimaatid muuqaalka ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ku dhufataa toolkan ay ku qoran tahay split ayaad ku dhufanaysaa. waad u jeedin ayaan filayaa sidaan ayaad u jarjari kartaa muuqaalkaaga. waad dooranaysaa kadib split ayaad ku dhufanaysaa. sidoo kale marka anagoo isticmaalayna programkan FiverCut-ka qaabkee u sameyn karna wax loo yaqaano cut ama delete ama remove ama waxyaabaha qaladaadka muuqaalkeena ku jiro qaabkee iskaga saari karnaa. ugu horreyn marka clipkaaga markaad jarjartid inta qaladaadka ah
waxaa sameynaysaa marka inta khaladka waa dooranaysaa. Markaad dooratid iconiskan ama tuulishan meeshan kuu saaran dhankaaga midigta usoo jiid, waxaad raadaysaa marka toolka ugu dambeeya aad imaanaysaa. Almuhim toolkan waxaad ka doorataa delete aad ka dooranaysaa. Muuqaalkan sidaan ay u baxay. Haddii aad u baahan tahay muuqaalkii qalad haddii uu ahaa si qaldan uu gacanta ay kaaga dhacday aad delete garaysay, aad u baahan tahay inaad soo celisid, waxaad ku dhufataa iconkan undo ayaad ku dhufanaysaa. Labadan icon waxay kala yihiin undo iyo redo ayay kala yihiin. waan rajeynaa inaad wada fahanteen dhammaantiin. Marka waxyaabaha khaladka oo kale aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad ka saartid, waad dooranaysaa. Markaad dooratid kadib iconka ugu dambeeya ay ku qoran tahay delete-ka ayaad click ku siinaysaa. Sidaas ayaad u tuuri kartaa waxyaabaha khaladka ah. Sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programkan Viva Cut-ka, qaabkee u samayn kartaa transition waxaa loo isticmaalaa labada muuqaal markay kala gudbayaan inta u dhaxaysa ayaa loo isticmaalaa. waa qurxin waaye transition-ka. Tusaale ahaan clipkan meesha iskugu imaanayaan ayaynu qurxin karnaa. Marka si aad marka transition-ka aad u wada fahantiin dhammaantiina, labada icon yar oo cadaanka ee u dhaxeeya labada muuqaal markay kala gudbayaan, iconkaas cadaanka ayaad click ku siinaysaa. Kadib meeshan waxaa kugu diyaarsan transition aad u fara badan ayaa kugu diyaarsan. Marka qaybtan ayaad usoo jiidi kartaa, midkii aad u baahan tahay ayaad ka dooran kartaa. Tusaale ahaan qaybta move-ka markaan ku dhufto oo kale midkaan aan doorto. Hadda marka qaybtan waxaad ku haysataa marka apply to all, micnaha waxaa waaye meel walba uu muuqaalka aad edit garaynaysa uu ka kala jaran yahay ayaa lagu apply garayn doonaa transition-kan. Marka ani hadda uma baahni, almost marka done ayaan leeyahay. Hadda aan isla wada daawano marka hadda transition-kan oo ujeedin ayaan filaya. Xoogaa haddii aad muuqaalka aad daawanaysid aad ka dareentid culays, waxaad samayn kartaa marka qaybtan waxaad imaanaysaa muuqaalkan oo qaybtan canvas loo yaqaanaa shaashada meeshan. Haddii aad culays ka dareentid oo muuqaalka aad daawanaysid, qaybtan preview quality ayaad imaanaysaa. Marka quality inta aad ka dooran kartaa. Haddii aad u baahan tahay high ayaad ka dhigan kartaa, medium, low. Marka medium-ka ayaan hadda ku daynayaa, kadib done ayaan leeyahay. Waxaad u isticmaali kartaa shaashada muuqaalka kuu saaran markaad daawashadiisa culays aad ka dareentid. Marka waad ujeedin ayaan filayaa saaxiibayaal, transition runtii aad u qurux badan ayaynu kusoo darnay. Marka adigoo isticmaalaya programka Viva Cut-ka, qaabkan ayaad muuqaalkaaga transition ugu dari kartaa. Transition-ka qaybta waxaad imaataa muuqaalka inta u dhaxaysa labada clip ayaad imaanaysaa. Kadib transition-kii markaas aad u baahan tahay ayaad dooranaysaa. Kadib qaybtan done-ka ayaad ku dhufanaysaa. waan rajeynaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka transition-ka muuqaalka loogu soo daraayo. Marka sidoo kale adigoo isticmaalaya programkan Viva Cut-ka, qaabkee muuqaalkaada aad ugu soo dari kartaa qoraal. Qoraalku wuxuu noqon karaa subtitle, wuxuu noqon karaa title, wuxuu noqon karaa lower third. Marka almuhim qaabkaad ugu fudud aad ugu soo dari kartid qoraal muuqaalkaaga. Meeshaad u baahan tahay waraa muuqaalkaaga waa daawanaysaa. Meeshaad ugu baahan tahay inaad qoraal aad ku soo dartid ayaad imaanaysaa. Kadib tuulishan ayaad waxaad ka raadinaysaa tool ay ku qoran tahay text. Kadib qoraalkaad u baahan tahay aad qoraysaa. Sidoo kale marka waxaad samayn kartaa qoraalkaaga adigoo isticmaalaya qaybtan shaashada. Qoraalkaaga meeshaad u baahan tahay aad dhigi kartaa. Gees walba waad dhigi kartaa. Haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa qoraalkaaga waad soo weyneyn kartaa. Haddii aad u baahan tahay waxaad ku samayn kartaa rotate ayaad ku samayn kartaa, waad qoloocin kartaa qoraalkaaga. Almost marka waxyaabaha textiga la halmaalo oo kale qaybtan ayaad ka bedeli kartaa. Qaybtan fontiga ayaad soo furaysaa. Fontiga waxaa waaye qoraalka fartiisa aad iska bedeli kartaa. Haddii aad u baahan tahay noocii aad u baahan tahay aad dooran kartaa. Haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga waxaad u samayn kartaa stroke ayaad u samayn kartaa. waad ujeedin ayaan filayaa. Marka qaybtan colorkii aad u baahan tahay waxaad ugu samayn kartaa stroke ahaan ayaad ugu samayn kartaa. Sidoo kale qaybtan waxaad ka samayn kartaa colorka farta aad bedeli kartaa. Colorkii aad u baahan tahay aad dooran kartaa. Sidoo kale qaybtan shadow aad ugu samayn kartaa qoraalkaaga. Qaybtan kalena waxaa waaye opacity. Qoraalkaaga haddii aad u baahan tahay sidii looga camal inaad ka dhigtid, xoogaa waxaad ku samaynaysaa marka tirada boqolka aad soo yareynaysaa. Qoraalka muuqaalka ayuu guduhu u gali doonaa. Marka saaxiibayaal, dhammaan waxyaabaha farta la xiriira insha Allah inta aad ka bedeli doontiin. Haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga inaad delete garaysid, almost delete-kan iconkan inta aad ku haysataa.
marka sidoo kale haddii aad u baahan tahay qoraalkaaga durationka ama waqti uu ku socdo haddii aad u baahan tahay inaad dheeraysid geesahan ayaad ka dheerayn kartaa. haddii aad u baahan tahay wax yar leh qoraalkaaga inuu ku jiro muuqaalka waad soo yareynaysaa. bal hadda qoraalkan aynu kusoo darnay muuqaalka aynu isla wada daawano. waad ujeedin ayaan filayaa waa title qurux badan ayaan u sameynay, muuqaal production ayaan ku qoray. marka sidoo kale adigoo isticmaalaya programka Fiverr Cut-ka qaabkee u sameyn karta wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale speed motion. marka muuqaalkan ugu dambeeya ayaan imaanayaa si aynu u fahanno speed motion iyo sidoo kale slow motion. muuqaalka ayaan dooranayaa, kadib iconiskan waxaynu ka raadinaynaa meelay ku qoran tahay speed. iconkan ayaan dooranaynaa si aynu u sameyno slow motion iyo sidoo kale fast motion. iconka speedka markaad doorisid tirada hadda wuxuu ku saaran yahay normalka muuqaalka socodkiisa waxaa waaye 1 times. waa 1 timeskan haddii aad ka badisid waxaa waaye fast motion waaye, haddii aad 1 timeska aad ka yaraysid waxaa waaye slow motion waaye. hadda marka fast motion aynu ka dhigaynaa, muuqaalka orodaa ku furmi doono aynu isla wada daawano. waad ujeedin ayaan filaya marka muuqaalkan hadda waxaa waaye slow motion maaha fast motion ayaa ku furan. marka sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad slow motion aad ka dhigtid waxaad sameynaysaa marka tirada 1 timeska ayaad ka yareynaysaa. aynu isla wada daawano marka hadda clipkan. waad ujeedin ayaan filaya marka saaxiibayaal slow motion iyo sidoo kale fast motion sidaan ayaad u sameyn kartaa. marka sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad kusoo dartid music ama cod ama sidoo kale sound effect, waxaad isticmaali kartaa iconkan tuulisha meeshan ku saaran midka music ay ku qoran tahay waad isticmaali kartaa. sidoo kale meeshan ay ku qoran tahay add to music ayadana waad isticmaali kartaa. marka tuulishan waxaan ka dooranayaa qaybta music ayaan ka dooranayaa, kadib online-ka ayuu ku keeni doonaa. online-ka waad la soo degaysaa waxyaabahan application-ka ay ku jiraan dhammaantooda. marka ani hadda qaybtan device-ka ayaan dooranayaa qaybta gudaha telefonka. marka waxaan soo dooran doonaa insha Allah waxyaabaha igu jiro mid ka mid ah. hadda musicaad inta waad ku dhageysan kartaa. marka haddii aad ku qanacday musicaada qaybtan waxaad ku dhufataa add-ka aad ku dhufanaysaa. marka sidaan ayaan ugu soo darnay muuqaalkeena music. waad ujeedin ayaan filayaa marka saaxiibayaal musicaada haddii aad u baahan tahay waxyaabo badan ayaad u sameyn kartaa sida volume-ka oo kale waad yareyn kartaa haddii aad u baahan tahay inaad background ahaan inaad u isticmaashid. sidoo kale waxaad sameyn kartaa fade in ayaad u sameyn kartaa. sidoo kale waxaad u sameyn kartaa fade out. micnaha fade in waxaa la lahaa musica markuu bilaabana inuu si daciifnimo uu ku bilowdo, sidoo kale musica markuu dhammaanayana inuu si daciifnimo uu ku dhammaadana fade out ayaa la lahaa. haddii aad u baahan tahayna waad iska delete kartaa asigoo dhanba, qaybtan delete ayaad ku haysataa. marka waan rajeynayaa inaad wada fahanteen qaabka music aad ugu soo dartay ayaad waxaad ugu soo dari kartaa haddii aad u baahan tahay cod aad ugu soo dari kartaa. sidoo kale haddii aad u baahan tahay marka saaxiibayaal projectiga aad ka shaqeynaysid muuqaal kale inaad kusoo dartid, calaamada iconkan pluska meeshan kuu saaran ayaad ku dhufanaysaa. gudaha telefonka ayaad usoo gudbi doontaa, muuqaalkaad u baahan tahay aad kusoo dari kartaa. waad ujeedin ayaan filaya hadda muuqaal kale ayaan sidaan ugu soo darnay. sidoo kale marka saaxiibayaal haddii aad u baahan tahay inaad sameysid color correction ama muuqaalkaaga colorkiisa inaad qurxisid, clipka aad u baahan tahay clipyadaada mid ka mid ayaad dooranaysaa. kadib waxaad soo furtaa toolkan ay ku qoran tahay filterka ayaad soo furaysaa. meeshan waxaa kugu diyaarsan colors ayaa kugu diyaarsan, midkii ku qanciya ayaad isticmaali doontaa insha Allah. marka sidoo kale saaxiibayaal colorka haddii aad u baahan tahay waa khafiif aad ka dhigi kartaa, haddii aad u baahan tahay 100% ayaad geyn kartaa. calaamadan waxaad ku dhufanaysaa marka dhan ayaad ku dhufanaysaa. marka labadan clip hadda waad ujeedin ayaan filaya way kala duwan yihiin. clipkan color gooni ayaynu saarnay, clipkan waa sida originalka ahaa. haddii aad u baahan tahay sidoo kale waxyaabaha meesha ku diyaarsan inaadan isticmaalin, qaybtan waxaad isticmaali kartaa adjust. meeshan waxaad ku haysataa wax walba colorka lagu sameyn lahaa aad u baahan tahay. marka waan rajeyn doonaa kuwan inaad u gudgali doontiin brightness, saturation, contrast, wax walba inta aad ku haysateen. almost haddaadan automatic aadan u baahnayn waxyaabahan kale waad isticmaali kartaa toolkan adjustiga ayaad isticmaali kartaa. marka saaxiibayaal runtii programka tuulisha uu leeyahay waa tuulal aad u wanaagsan. insha Allah marka waxaan rajeyn doonaa intaan ka badan inaad usii gudgali doontiin. programka waxaan sheegayaa waa multi track, waxyaabo intaan ka badan ayaad ku sameyn kartaa.
marka almuhim marka programka waxyaabaha asaasiga qofka markuu soo furo uu u baahnaa ayaa muuqaalkan aan ku sharxay. Inuu mashruuc cusub uu abuurto, in muuqaalka uu jarjaro, in muuqaalka cod u sameeyo, in muuqaalka qoraal uu kusoo daro, in muuqaalka transition uu sameeyo. Marka waxyaabaha asaasiga ayaan ka hadlay. Marka intaan ka badan haddii aad u baahan tahay waxaad sameysaa marka programka usii gudgal insha Allah. Program sidaas u adag maahan, waqtiga inuu sii dheeraada ayaan diidanahay. Marka insha Allah waxaan kusoo gabagabeyn doonaa wax walba uu ku saabsan yahay muuqaalkaaga. Markaad dhammaysid waxaad u baahan tahay inaad dibadda aad u soo saaritid, aad export aad dhacdid. marka si aad export aad u sameysid muuqaalka dibadda aad ugu soo saartid, iconkan geeskan ayaad ku dhufanaysaa exportka. Runtii muuqaalka ilaa iyo 4K ultra HD ayaad ku sameyn kartaa muuqaal qualities gaar marka cabirkaad u baahan tahay aad dooranaysaa. kadib sidaas ayuu wuxuu u sameyn doonaa programka exporting. waxaan rajeyn doonaa saaxiibayaal guud ahaan dhammaantiin programkan inaad ka wada faa'iideysan doontiin. runtii waxyaabo intaan ka badan ayaad ku sameyn kartaa programka. waxyaabaha aan ka hadlay waa asaasi. waan rajeyn doonaa saaxiibayaal inaad usii gudgali doontiin. intaan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa muuqaalkeena. walaalkiin Aadam Nuur Xasan oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.